garbaysu taagtee gunta oo dhaqaaqo haw noqon gaadalabi Somaliland garo garbaysu taagtee gunta oo dhaqaaqo haw noqon gaadalabi حوما وركيدا وحي كلا good boy وحي كلا good boy قرد حوما وركيدا وحي كلا good boy وحي كلا good boy Kiisku kiingubay garato ilowday aydinko bunyoba garao alala nacab kiisku kiingubay garato ilowday galadi tada wax qabadiyo hawleenan gaarka hawleenan gaarka galadi waa taebe uguntada wax qabadiyo hawleenan gaarka saddex cisho xafladda inoo socota anigoo ku hadlaya magacayga Cumar Sayare oo kamid ah dhalinyarta deegaan Los Angeles Sobri waxaan mahad gooniidii ka sida sharafta leh aad uga soo qayb gasheen ururka Sobri dhamaantiinba waad ku mahadsantiin waxaa sharaf ii ah MC-gayga labaad oo Nasteexo Axmed la yiraahdo inaan idinku introduceeyo habeen wanaagsan dhamaantii dadweynaha halkan isugu yimid ka yimid wadannada kala dhaadheer aba ahaatee ama wafdiga ka socdo halkan waxaan Somaliland sorry raalli ahaa waan miskireeyaan u malaynayaa Cumar Sayare oo kooxda soo qaban qaabisay muddo weyna ka shaqeynayay ka xafladan oo I think waxaan u malaynayaa qiimo dheeraad ah inoo wad mahadsantiin dhamaantiin iminka waxaan idinku soo dhaweyn doonaa Nasteexo waxaan u malaynayaa dad badan inay gaajoonayaan waqtigan xaadirka ah iminkana cashadii baa inoo furan dhammaantiin waad mahadsantiin thank you Mother, she
That's good. waxaan u maleynayaa caawa khudbado badan saamid ku ballan qaaday ma jirto waa ciyaaro iyo xaflad iyo dhaqan iyo tacliin umbaa isku wadayaa marka imika waxay noogu xigtaa qolo ajnabi oo halkan inala joogta oo state of California ka socota oo iyagu ku soo dhaweynayo awards siinaya muxuu soo dhaweyn dad ka soo qayb galay xafladda ayaa inala jooga marka waxaan jecelahay inaan u yeedho aaminaadan marka waxa kaloo jecelahay inaan u yeedho Bob Farrell, Councilman Bob Farrell iyo Senator Dianne Feinstein deputy-geeda oo wada taqaanaan oo saaxiibkeena Percy Pinckney marka iyaga ku wareejinaya imka mikrofoonka siday u siiyaan dadkan ugu yeedhaan First of all, I want to say that it's indeed a pleasure to be here tonight. I want to know I'm not a Johnny-come-lately when it comes to the Somaliland Committee. I was with you in San Jose. I was with you last year in San Diego. And I'm here this weekend with you as well. I want to bring greetings on behalf of U.S. Senator Dianne Feinstein and say it's a pleasure for my office to work with such brilliant, dynamic leadership that you have. Saeed Samantha, I want you to know, is the best and the brightest we have in the country. And we are pleased and proud that he has been one of the spiritual leaders in this movement. I want you to know nobody works harder than Saeed. And we're just proud of him. And I'm here tonight to say to you that in both BAPAC and the Senator's office, we are extremely proud of him. And I want to say to Somaliland, someday it will happen. And I can assure you that the Senator and I will do everything we can to make that a reality. Thank you, and thank you very, very much. And ladies and gentlemen, on behalf of Assemblyman Mervyn Dimely, I'm pleased to. It has been a wonderful 2 days of having an opportunity to get to understand what Somaliland and Somalilanders are all about. And I'd like to say thank you very, very much. As Percy Pinckney has talked about our friend Saeed Samater, in a way we're also talking about SOPRI, because in a very, very short amount of time, SOPRI has established itself so that it has put together this first national convention in the United States addressing the issue of Somaliland recognition. And both Percy and I, on behalf of Senator Feinstein and Assemblyman Dimely, would like to commend SOPRI for that accomplishment. We believe we're on the right track. Out of our years together, we have seen the Arab American Institute organized and expanded across these United States under the leadership of Dr. James Zogby on behalf of Americans of Arab descent.
working to influence the foreign policy of the United States. At the same time, we have seen the work done by Salam al-Mariyati, also one of our colleagues, in establishing and working for the advancement of the concerns of Muslims in the United States through the Muslim Public Affairs Council. And now, Percy and I are honored to stand with Saeed and Sopri in raising the issue of Somaliland recognition. In our tradition, we like to give tokens from our leadership to yours. So with the assistance of Percy Pinckney, as I call out the names of you leaders who've come to honor us in Los Angeles with this convention, would you please come to the podium? Ahmed Mohamed Silano. And while he's coming, Professor Ibrahim Samater. This is Mr. Silano, and this is Mr. Samater. Faisal Ali Farah. Ahmed Hashi Abdi. The Honorable Abdurrahim Abi Farah, our former Assistant Secretary General of the United Nations. Is he here? Yes, right here. Yes. Ah, yes, here he is. Professor Hussein Adan from Holy Cross University. Professor. Thank you very much. And of course, what would it be like for us in these United States to not have something special for the Honorable Edna Ismail, the Foreign Minister? The Honorable Abdullahi Duale, Minister of Information. The Honorable Mahmoud Salah Noor, the former Foreign Minister of Somaliland. Mr. Noor. He's not here. Professor Iqbal Jabazeh, our former head of the ANC. And Matt Bryden, you're clapping your hands, but please, would you come too? Matt Bryden, International Crisis Group. Mohammed Ibrahim Yassin, Managing Director of Dawalo Airlines. Mohammed Saeed Duale, the Chairman of the Habshib Company. He was not here, was he? Yeah. Yes. All right. Mr. Yassin. Here he is. Yes, on behalf. Dr. Saad Ali, the founder of Borough University. Dr. Mohammed Rashid, Director, Academy of Peace and Development. Dr. Saad Sheikh Noor, Somaliland representative in the United States. All right. Go for it. And then Mr. Noor. This is Noor. Yes. And then our friend we just met today, the Honorable Peter Kuhl from Sweden. And I don't think he's here, but we also have one for the Honorable Jim Karagianis from the Parliamentarian. A representative from Toronto? No, he's left. For Jim Karagianis, please. This one.
Someone for Jim Paragiannis? Someone from Toronto? Is there someone from here to just take it? Toronto, there was that big crowd of Canadians. Can we have a Canadian come? Thank you. Ladies and gentlemen, just a small token to express our appreciation for the work that you do. Good evening. Sorry. Everybody has a camera. It's a pain in the ass, man. I can't do my job. Keep me inside. I'm tired. waan ku sii godlalaa waxaan runtii la'aantiin haddiiba ay jirto waxaan qabtay maanan qaban kareen waxaan ilaahay ka baryayaa in waqtigiisa dalkeenoo la aqoonsaday inagoo caafimaad nabadgelyo bashbash iyo barwaaqo ku nool ilaahay isku keensano ilaahay ina tuso waddankeennii oo la aqoonsan yahay oo xora oo nabada oo sidaa caawa inuu u fadhino dhammaantii dalka oo dhan iyo dadkeennoo dhamma aysaa u faraxsan yihiin waxaa ilaahay aan ugu mahadnaqaya haddiiba ay jirto waxaan qabtay ilaahay i garansiiyey inaan ummaddayda aanu shaqeeyo wasalaamu calaykum Hulka dambe wuxuu aad u howlweyn oo u mutaysan oo aad iyo aad uga bedelnay waxaa weeyaan Ibrahim Mayab Samatar waana garanaysaan kulligiin waa taqaaniin Ibrahim Mayab oo hogaamiyayaashii SNM-ka farxadda caawa halka ku joogtaan isagu duurka u galay ka soo dagaalamay oo idiin soo hirgeliyey farxadda wanaagsan anigana waa ii farxad iyo sharaf waxaa soo dhaweynaysa oo horsiinaysa Faadimo Cali Guuleed oo aan taariikhdiisa ogtihiin halkina aanan idinka sheegi karaynin oo aad ka dhagagsan tihiin waxa aan ka fikirayaa mid maalintii Ibrahim Mayab Samatar ay Somaliland u baahnay in uu ka dhaqaaqay reerkiisii iyo carruurtiisiiba saddex nin weligaa lama gaaro nin waa ninka kaa faraska fiican ninkaa maalin ma gaadhay ninna waa ninka sanad xoolihiisa meel wanaagsan daacsada kaana sanad ma gaadhay ninna waa ninka gabadha wanaagsan markaa Ibraahimna gabadhiisa ayaa sharafta u soo warisay الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر waxaa ku daran inantiinka ay keli garan maayo oo aan ahayn madax madaxaysan
shaka iga jirana mukristeeyo in kale waajib yaalay umaan ku dhaqaaqay ooridaydina waajib yaalay unba caruurteedii haysata wax dheeraada maahe intaan rudaynu idinkuna guddigiin hawsha shacbigaa weligeed bare taariikhtana shacbigaa ummadaana qabsataa ashkaasa idin dhex boodboodaa waa muudhan markaa alla baday idina sidaa u arka waxaan yara raacinaya mar idin sheegaya markaan hawsha esramka intaana gelin foyne ama 7 caruuro wada ka soo cararay Germany halkan cagaha soo dhigay anoo qaxooti ugu horreeyay Mareykanna aan noqday qofkii soo dhaweeyay ee saaxiibkay ahaa ee 4 sano isliqiinay ayaa caawa halka inala fadhiya ee 7-yadiiba guri geliyay Victor Lebed أحمد محمد ميلايو أحمد محمد وورجال نيسان وهالجمياشي SNM مدحري SNM ونسيب وناق عاوين عندك سود ويو وحنكروت إعلان لها إلى آمنة شيخ محمد وحاسي سود عاوين للشوكة منها كم كسور دواكو وايو سيدة محاي هيتوي إبراهيم شادي أما أي شيختي محايتوي فادمة علي قولاد رجل هالجمعي وقاعدة هذه يشير هوين أدق بحد بيي هذيك الهوشة وين فرق سنة هذه waxaan maxay diiwaysan tibaal basbaas hayada inta halka qaadi waxay la tahay inaan maxay tahay Ahmed Mohamed Filaayi oo qalmin inuu la hadlaa Ingiriis caawa lagu sheego inuu u qalmo af Soomaali marka afkaygu waa diidan yahay Ingiriis si kasta waxa yeeshay number 2 jibaal basbaas oo galo baahna introduction aniga ayay intahay إن مالها أحمد يا آمنة شرق وينين تاينا شيء ده تسمعشوا أنا وقف عندي برنامج كان هاي سياستنا أنا كنت لنا كورس هسيش أحمد وحوي من فاميلي معنا كاسنا وحكاك سحاب كيس يعبد تسيد وبحريان وحوي لأحمد وهيرو ويان وحوي قف صاحبني قف صاحبه بها صاحبه أحمد وحوي محمد علي يقوسار أحمد شيرين رجي رجها أي نوبناه وهيرو أنا وهيرو بيجا. Ladies and gentlemen, give it up for Ahmed. بسم الله الرحمن الرحيم. دباب آد بعد ما صنتهاي صبرا شرفت تنعاو هالكم ما لقوش رفي أنا والله كلمة ومد أنا آد قيمانية وعن شعلها كلية إن لما أري هالكم أوجا قابن كيراب بدوحة وية شرفتا iyo magaca iyo shahaadada caawa halka lagu guddoonsiiyay magacii halkanka waxaan idin sheegayaa waxaan ku aqbalayaa oo u qaaday maaha naftayda waxaan u qaaday oo kaga wakiilahay intii u dhimatay
ee xoraynta somalilan u dhimatay intii ku dhaawacantay intii ku naafowday ayaan u qaadayo u sidaa markaan wadaadaan midda labaad halka dood siyaasadeed ka furi maayo waxaan leedahay maanta innaga iyo dalkii aynu israacanay berigii hore ee soomaaliya la odhan jiray waynu kala duwannahay maanta sababo badan baa loo samayn karaa waxaynu ku kala duwannahay waa maxay waa su'aal la isweydiin karo maxay soomaaliyana sidaa u noqotay ee u xasili weyday ee u degi weyday ee baaba ugu jirtaa maxaa somaliland taa aynu maanta kulligeen ku wada dhaadanayno ee ku wada faanayno ee ilaa halkaa aynu isugu nimid ee ku walaalownay ee ku mudownay ee dhidibada u taagan tahay maxay ku noqotay waxay ku noqotay waxa weeye SNM halgankii ummadda loo soo galay somaliland waxaa qabsatay dhisme la yidhaahdo SNM oo dhisnaa oo dalka qabsaday oo dawlad ka ahaa markii la soo galay taasi kamay dhicin xamar haddaynu iyagu waa dad xuno weyday karo innagaa wanaagsan waxaynu noqonaynaa racist waxaynu noqonaynaa waxaan caqliga gelin baynu ku hadlaynaa waxa weeye faraqa inoo dhexeeya waxa weeye maanta dhismayaasha inoo dhisan waxaynu ku faanaa guurtida waxaynu ku faanaa golayaasha ma aha dawladii hore ee soomaaliyeedna ma jirin markii dambena lama abuurin waxa weeye waxaa abuuray oo keenay oo dhismayaashaasi waxay ahaayeen kuwii SNM dadkii walaalaha ahaa ee isa saamaxay ee isu yimidna way ku soo biireen guddiyaashu waa kuwoodii golayaashu waa kuwoodii maanta taa aynu harsanayno dadka keenay iyo dhisma aynu harsanaynaa waa halgankii SNM waa midhihii qaraaraha loo soo maray intii u shahiiday intii u dhibaatootay intaa magacoodan sharaftaa maanta ku qaadayaa waana mahadsantihiin iyagaana aad iyo aad baa mahadsantihiin One more. Okay. la siiyey shahaadada recognitionka Dr. Iqbal Jazbai therefore for him to understand what I said that we have a cause we are determined to fight for our cause. We appreciate those who support us in our cause, and Dr. Iqbal Jazbai is one of the people who are see to it that our people get to their goal and that the Republic of Somaliland is recognized. This particular recognition board is reading Professor Iqbal Jazbai Merit Award on your dedication for the Somaliland Friendship and Recognition Somaliland Convention presented by SOPRI, June 26, 2005. I am going to give it to Dr. Iqbal Jazbai. Your name. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is both a very honoring and a very humbling experience. I'm convinced that this award should be dedicated to the people of Somaliland. It's really the people of Somaliland, their inspiration, their resilience, which has made it possible for many of us to be inspired, to be encouraged by this example, and notably the women of Somaliland for the role they have played.
this award will always be remembered because we are gathered here on 26 June. And 26 June is also very special for many of us in South Africa, because today we are also celebrating 50 years of the Freedom Charter, which many of you helped us. So for that reason, this occasion would be special and will stay in our hearts. And I'm sure the ecstasy of this moment, the joy and thrill of this moment will stay with us and help us to go further and push further the cause of Somaliland. Long live Somaliland. ugu dambeyntii waxaa maxay haytooy aanu shahaadad siinaynay Canab Cumar Ileeye oo aan halkan caawa joogin shahaadadii waxaan dib baan u yeelay celino waxaan maanta waa ilmahan joogin aniga ayaa u qaadaya magaceeda ku qaadaya Canab waa halgamayaashii dumarka ahaa Canab waxay ahayd qof dumara oo hargeysa la yidhi waa laga masaafurinaya oo laga masaafurinayay Canab inalama joogto ee gacan siiyo mubadku Gifts and tokens here from South Africa. The first one is to Ambassador Abiy Farah. As many of you know, President Mbeki of South Africa is very fond of Ambassador Abiy Farah for the role he played in the anti-apartheid struggle, for leading the United Nations Security Council delegation to South Africa in 1989. And to my knowledge, President Mbeki is one of the few presidents who writes a weekly letter, and the head of the presidency has asked me to convey this to Ambassador Abiy Farah, the speeches of President Thabo Mbeki. The second token of appreciation we have from South Africa is for Mr. Saeed Samadar of SOPRI. We've brought him some tokens for SOPRI as well as for his wife, whom I'm sure has been a great help to him. And as President Thabo Mbeki is fond of saying, behind every woman is herself. And finally, on behalf of the women of Somaliland, this is the book on the women of South Africa. May I ask Sister Abi Hassan to receive it on behalf of the women of Somaliland. Thank you. History. What's next? dhammaan qolooyinka la siiyey awardska iyo qolooyinka bixinayba waad mahadsantihiin iyo qolooyinkii innovationka noqday halkaa fadhiyo dhalinyaro badan baa kursigii ku caajisay muddo daqiiqada waxay noo bilaabi doonaa Somaliland, Somaliland, dalkayga, Somaliland, dalkayga, Somaliland, dalkayga, Somaliland, dalkayga. Somaliland, dalkayga, Somaliland, dalkayga, Somaliland, dalkayga, Somaliland, dalkayga, Somaliland, dalkayga, Somaliland, dalkayga. Kuwa wixii ingiriiska tiray, dalkuwa midkura, yowliyadii
حفلة عاوة صعطاء سيدة ورقتا والنغيلة باتنكي تشون مركز سيدة أركتها بكل مغطاء أما شعورت هذا وزني مسيدة تحي لي حالات تشوف التاريخ بعض ما يقول لها وعم قلنا لي حالات أنا ما قال لكن ده ما كان أساس كان غني وإحنا عايزين بس شنو نودنا لنا بس حكم والله قصة كيس تاريخ أبو سومرين بدك سو وبصوت هناك عبد الله عباد سمعته لكن الله يرحمه وصلنا إلى عبد الخلاص من بدن الصومالية قوسوا على التاريخ الصومالي. أوكي. عاو شعورت هذا ودن محك تصيص سيدي بعد ستحي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد مدينا دبوك شيء waxaan arkaa rajo weyn oo ma korayay muuqan ayaa maanta ay muuqata ana waxa weeye xoogii dibadda ma kor dhaliiliyay ayaad moodaa inuu toosay taasna waxay keenaysaa waddankeena waxay siinaysaa xoog bay siinaysaa oo halku taagnaa way ka sii xoojinaysaa waxaan markaa ilaahay ugu mahadnaqayaa subxaana wa tacaala ilaahaygaa dowladnimadeena iyo qarannimadii noo soo celiyey ilaahayga maanta taladii dalkay gacanta noo geliyey waxaan jeclahay in aynu habeeno badan oo sano kale ah sanado badan oo farxad saas ku ciidno ilaahayna gaarsiiyo in ilaahay ka bariyo subxaana wa tacaala faysal ummadda reer Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan magaalada Minneapolis ama Minnesota maxaa fariin u gudbinaysaa iyaga maadaama ay la nool yihiin dad badan oo koonfurta Soomaaliya ah markastana ay xamlado iyo iskaga hor yimaadaan gaar ahaan marka xusuuska la dhigayo xusuuska sidan oo kale ama xafladaha qarannimo ee Soomaaliland marka maxaad adigu oranaysaa ummadda reer Soomaaliland waxa weeye horta waa nasiib darro in dad lagula culoobo dalkayga wana maamulaya mustaqbalka carruurteeda anaa ka talinaya cid aan u ogolaanaya inay xukunto ma jirto oo masiirkii anaa ka shaqaynaya in horta dad loola culoobo waa nasiib darro waxaana filnaa nimanka walaalaha annaga ee Soomaaliya inay ilaahay caqli siiyo in ay dantooda ka shaqeeyaan wadan uu sheegay in uu sheegaya Soomaaliland dadkii lahaa uma gacanta ku haya dad cadow oo meegelin waxa fiican inaynu wax wada qabsano dad wada jaareen mahan macnaheedu ma hadaynu kala baxnay macnaheedu ma wan isnacnay wan iskarhanay maaha macnaheedu waa caqli maanta Soomaaliya u wada talin karaa ma jiro waynu experiment ma sameynay waa ku feel garoonay
marka meelka looga wareega waxaan leeyahay iska dulqaata iyo way soo gaarin oo caqligoodu waa caqli gaab u dulqaata okay marka fariinta ugu dambaysa maxaad faraysaa iyaga dad gaar ahaan Soomaaliland wax salaan ah ama aad u diraysid shakhsiyan ciid wanaagsan waa leeyahay dadka Minnesota baa u jeclaa idaacad bilay door jabay la soo macaamileen halka ka wada aniga jabina يوتا كان واسق laga dhaafiya doorsho wanaagsan baan gelnaa gacan ka soo geysta cidii doorso waddanka ay gacanta ka qabatana waan sharaxnaa noo kaalaya kii shaqadooda ka qabtana waan siinaa kii doonay fadlan gashan waan caawinaa dee waddankii soo xasuusto isku soo xilmaba leh mahadsanid walaal adiga magacayga oo saddexan wax la dhaho walaal Shabiir Saleeman Umar waxaan ku noolahay magaalada Minneapolis waa tahay caawa oo loo dabaaldegay lixilaatanka marka farxadaada caawa ama shucuurta kugu jirta ee wadanimo sidee kula muuqataa wallahi tabiicana hatta qolkiiba wax lagu farxo weeyaan in dadka Soomaaliland oo markay saasbay maadaan si ay process-kan socda iyo nabadgelyada sida waxa Soomaalida hore ma ahayn oo waxa la yiraahdo wada jirbi taasoo weeyar waxa sharafna mudan ragga sarsare ka socda xukuumadda aadan ama mucaaradka aadan ugu horeeyo siraayo isagana waraabe كأرياد من عمري رفع حي تذكر حاجات سكولي الرسم على الحق أنت صار شيء كذا يمكن حدد والله أرياد أنا قرفت واسكت هاي من الصودا especially بروكلين بارك عبد الرحمن الدكتور هاي ماشي كنت أنا وصلت ورسي عن وضع كله تذكر من الصودا كسر ضد جنينا waxaan xagga ma ka salaamaya laakiin next year hadii la yiraahdo Washington DC ayaa second convention Somaliland okay marka ummadda reer Somaliland ee degan wadankii maxaad iyaga leedahay ama maxaad u diraysaa halkan hambalyo uga diraysaa ayaan u diray Somaliland ee dalka degan iyo ka dalka jooga oo naga ogeyn xaaladda sida tahay أنا كوحة إنترنت كوسادة كأخذ مستقبل السنوي وركا مهمتي iyo dadkii iyaga marka waxa weeyaan dadkii iyaga nagu inay gacmaha isqabsadaan oo dalka dhisaan ayaa loo baahan yahay dawladda waa loo yahay dawladdu wax way wada laakiin shacabku waa in laftigiisa wax kasta nabadda ka tashada wixii qashqashaad wada iyo wixii nabadgelyada wax u dhimayana si wada jira waad mahadsantahay guuleed hambalyo maxaad u diraysaa ummadda Somaliland ee ku nool adduunka dacalay Somaliland yimid hambalyo and congratulations for June 26 magacaygu Axmed Maxamedi xaleeyahay insha Allah waxaan rajeenayaa wadankeena Somaliland inuu xaaladiisa ka fiicnaa xaaladii uu taagan yahay so insha Allah we hope the best so anaku insha Allah hadii noqoto dadkeena anaka reer Mareykan we hope insha Allah wana caawin wax ku caawin karno khair bi insha Allah noqon doonto nabadooda maxaad ka leedahay xujista mise maxaad oranaysaa nabadda Somaliland nabadda Somaliland wallahi nabaddu waa very important soo ma noqon so security-ga nabaddu waxaan u baahan ما هي رغم كسي attention بدن سينو وأنا نتكر سمينو so وكاس وحرجينا دولته وحكرجينا إني إن شاء الله سفي عن attention في عن سيسو أو إن شاء الله is gonna be alright everything is gonna be fine سيدار كيسين لما أنت ودتك كل دقان وغوي أمريكا قاركود أي أبسمالي كبير هذا جي هساعة دقان كوبي أفكوبي هايستا سيدا يمكن قبضهم أدار كيسين أو سيدا تهديه دقان كي Somaliland ولا لا هذيك مجاعة إذا أبي وحنا كويدي معاه والله حسين الحلاتن كي تفون كذي مركي أي لحدا كي لا قاعد يقول إنه وطن كإنجليز كا لا صون عشري كوبي سجاشن كي سجى تبان كي ماي مركي دجال قرار لوجلاي
maxaad ka leedahay farxadaada iyo shucuurta kugu jirta caawa sida tahay aad baan u faraxsanahay inay wadan ay leenahay inkastoo aanan arkin ku faraxsan tahay aad iyo aad nabadda Soomaaliland ka jirta iyada maxaad ka oranaysaa arrinta wallahi waxaan leeyahay halka laga wado Soomaaliland ha noolaato thank you aad baad tahay inkastoo aanan arkin inshallah waxaan doonayaa inaan encourage gareeyo dhalinyarada and caawana la joogay waxaan doonaynaa inay imika kadib ka soo qayb galaan inkastoo meel fogay tahay mar walba meel la shaqo dhigayo because you know what it's our culture it's all about learning our culture and you know what I really like to encourage those younger ones dhalinyaradaas ma waqooyiga America mise ku Africa all over okay walaalo magacayga waxa la yiraahdaa Khadar waxaan ku noolahay magaalada San Diego waxaan u rajeynayaa wadankii in ay xornimadooda helaan inay nabadooda ilaaliyaan intaas ayaan rabaa inaan fariinta ay gaarsiiyo thank you Martin halkana waa shakuur nin aad u qaaliya oo halkan magaalada igu soo dhaweeyay baa jooga waa shakuur caawo 26 June ay tahay kadib markii Ingiriiska laga qaatay gobonimadiisa inkastoo ay tahay xornimada wadanku ay maanta tahay 18 May haddana 26 June waa maalin ummadda Soomaaliland xusuus ku midan maxaad shucuurtaadu caawa ku tusaysaa sideed tahay maxaad u diraysaa Soomaaliland oo kula hadlaysaa marka hore waxaan leeyahay reer Soomaaliland meel kasta aad joogtaanba hambaliyo mabruuk shucuurteeda wallahi dadka ma cabiri karaayo maxay haytooy aragtida ayuunba cabiri kartaa maxay dadka shucuurtooda maxay haytooy waxaan anigu experience igu soo kordhay maanta go'dowan xafladii hore waxaan la kulannay gudoomiyaha kulmiye Maxamed Ahmed iyo gudoomiyaha Ucud iyo Adagaash marka maxay haytooy shucuurteeda wallahi ma cabiri karo kelmadana kuma soo koobi karo aad baad u maasantahay waxaad igeelo walaal waxa ka digantay halkaad ka timid adigu ana waxa ka yimid San Diego California originally from Burco Somaliland. My name is Mohammed. I'm from Seattle, Washington. Okay. And حفلتني والله حفلات في عنوان أدبنا جعلنا سومالي قادمة كسومالي بنقولها حفلات في عنوان أدبنا وفر أحسن يدرسوا بيسوي مادين وحيابات بدنا وطن هرمرو ويالنا يوفايدة ولنا ولا جاه الله مكادت كالنيارته وطن كوكونا لوحنا نكوانين إن الدلالان إن وطن كسدي هرمر كيسيو iyo dhaqaalihiis bas uu kici lahaa inay ku dadaalaan jaadkana iska ilaaliyaan waa dhaqaalaheena ay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum marweyni madalbanti baa ka xad caawa xaflad aad ballaaran ku soo gabagabeynay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليه عساكي حتى له سميه أجركنا كل النياي عقيدة إسلام كيو إنه عادل جربا